ururkan oo ah urur ay ku boobeen dhalinyaro kaas oo sidoo kale ay ugu magac dareen anti-tribalism movement oo ah kacdoonka ka soo horjeedka qabyaaladda waxa xaruntooda ay tahay magaalada madaxda dalka Ingiriiska ee London ayaa waxa qalin dhanka indhaha ay u sameeyeen ama ay ku tabaruceen 30 qof oo isugu jiray rag dumar dhalinyaro iyo sidoo kale caruur oo isbitaalka Manhal ee magaalada Hargeysa uu sameeyay adeegyada daawooyin iyo sidoo kale qalin labadaba kan ayaa waxay degeen caasimadda Hargeysa gaar ahaan xaafadda Daami waxaana ugu horeyn ka warbixiyay ujeedooyinka iyo qaabka ay ugu tabaruceen Cabdirasaaq Ismaaciil Ciise oo soo ka socday ururka ATM waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaana halkan maanta u joogaa mashruuc muhiim ah oo tabaruca oo ugu tabarucnay walaalahayga muslimiinta ee Soomaalida ah inaanu indhaha ka caawino oo qalnayn ku fulino mashruucan ugu talagalnay laba magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaaliya oo ah Muqdisho iyo Hargeysa oo midkiiba ugu talagalnay 25 qof inaanu indhaha ugu fiiqno ama ugu jeexno hasa ahaatan halkan Hargeysa maanta joogo waxa Ilaahay mahadiya inay mashruucan ay ka qayb galeen dad gaaraya 30 qof ujeedadan uu sameeyay waxay tahay annagu hadaan nahay ururka ka soo horjeedka qabyaaladda markasta waxaan u heelanahay inaan hawlaha bulshada iyo sidaan u caawin lahayn dadka danyarta iyo dadka daciifka ama dadka laga xoog weyn yahay dhanka kale Sheekh Najax Xuseen Xariir oo ah gudoomiyaha xaafadda Daami ayaa wuxuu aad ugu mahadnaqay ururka ATM iyo sidoo kale isbitaalka Manhal waxaanu yiri dadka runtii loo fulinayo qalliinka waa dad runtii sad qaarka doontaan aad iyo aad u jilicsan tiradoodu dhowr iyo 30 qof bay noqotay laakiin intii qalitaanka ayaa 20 noqotay inna muraayada la siiyay wana ognahay qof muslim walaalka caawiya wanaaga iyo maaragtay ay leedahay wala garan karaya Ilaahay ka abaal mariyo jazaakumullahu khayra ugu dambeyntiina qaar kamid ah dadkii qalliinka indhaha loo fulinayay oo wax ka weydiinay daroonkooda ayaa waxay ku jawaabeen culaysku wuxuu hayay culays adag biigu hayay indhahayo waay habeenkii ma baxo waxaan sira wad shabe laakiin maanta waan mahadnaqayaa dhalinyarta dhibaatada indhahayga ay igu haysay ama culayska igu haysay anu maanta Ilaahay mahadi weeyaan hadii dhalinyaradaydu ragayga la mid ay caawiyeen